One nation, one religion, one Somalia. muxuu yahay federaal aqoon intee la eg ayaad u leedahay federaal maxay tahay ujeedada federaalka ee Soomaaliya miyaysan u adeegin dano gaar ah ee lagu kala fogeeyay ciidda badaha iyo dadka Soomaalida federaal iyo waxa ay tahay ayaan idinkugu hordhacaya waa hanaan lagu kala saaro dadka kala diinta ah kala jinsiyadaha ah kala luuqadaha ah waxaana intoodaba midaynaya sharci quraay ka soo baxaya dawladda hoose ee dadkaasi laakiin booska ay ugu banaan tahay Soomaaliya federaal waa inaynu baarno Somali waamid waawliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi Somali waamid waawliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wada timi Soomaaliya waxa ay leedahay luuqad qura iyo jinsiyad kulamaanan diin qura oo aanu dhinac u jirin shaki looga qabo diimo kale iyo in ay nagu dhex jiraan shisheeye wadanka muddo fog ku noolaa haddii ay jiraanna ma gaarsiisana heer federaal One nation, one religion, one Somalia. islaamka iyo federaal miyay macaamili karaan waa arin naga fogeynaysa diinteena maadaama ay tahay xadhiga kaliya ee Allah loogu dhawaado balse federaal waa kala fogeynta dadka muslimiinta ah ee wada dhashay ee Soomaalida qof walba muslim ah ee haysta diinta islaamka waxa ay faraysaa xadhig qura in ay wada haystaan dadkaasi wada dhashay ee islaamka balse federaal waxa uu farayaa mabda dadka kala midabka ah kala jinsiyadaha ah kala diinta ah ay ku dhaqmaan qabiil ma noqdo qaran lagu yigleelo federaal One nation, one religion, one Somalia. xagee buu naga yimid federaalka waxa uu federaalka ka yimid shakhsiyaad aanu markaasi aqoonta federaal aanu garanayn oo hogaaminayay wadanka waxa ay soo kala furfurtay dhulkii iyo mustaqbalka dadiyowga Soomaaliyeed federaal waa kala jajabinta dadka Soomaaliyeed ee qowmiyad qura iyo isku diin qura tan iyo xilligii dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya dhexmaray taas oo ay Soomaaliya uga adkaatay Itoobiya waxa ay soo taray qorshayaal lagu qaarijiyo qaran Soomaaliya oo dhaxal reebkiisa uu imika noqday magacyo ay ka mid tahay wadan argagixiso iyo wadan afar madaxweyne leh
waxaa ololaynta arrimahaasi ku jiray rag xilal waaweyn dalka uga soo qabtay xilligii xorriyad-doonka, balse wixii xorriyadda lagu raadiyey iyo damiirka ayaa kala garan waayay halka loo socdo. waxa ay soo socotaba waxaa la burburiyey dowladdii mayalka adkeed ee uu ka talinayay Maxamed Siyaad Barre, taas oo Soomaaliya ka dhigtay dal dadkiisa ay mid qura yihiin oo ay ku midaysan yihiin diinta, dhaqanka iyo taariikhda sooyaalka ah. kadib baa waxaa yimaaday awood military ee xooggan, taas oo askun u ah difaaca dadka iyo dalka Soomaaliyeed. waxaa la isku dhafay ciidamada militariga gebi ahaanba si ay u ilaaliyaan xuduudaha Soomaaliya ee ay shisheeyaha la leeyihiin, balse imika aanu dhihi karin xuduudaha Soomaaliya ee ay shisheeyaha la leedahay maxaa yeelay xuduudaha Soomaaliya qaybo ka mid ah ayuu shisheeyaha ku darsaday intii lagu murunsanaa arrimaha qabiilka iyo federaaleynta waxa la yiraahdo. wariga haday ku wato haday sida iyo dhigaro samateediyo xumaatee Soomaaliya one nation, one religion, one Somalia. xilligii dowladda kacaanka Soomaaliya waxa ay noqotay waddan qura oo dowlad qura leh, barwaaqo sooran iyo horumarka Soomaalida iyo maalgashiga shisheeye ayaa kordhay. tubtii nolosha ayaa la qaaday oo ay ku taameen jiilkii aan ka soo farcannay. laakiin muddo sannado ah kadib, rikoodhkaasi midnimada iyo qarannimo ayaa ciidda afka loogu daray. dano shisheeye rag u adeegayay ayaa u ololeeyay mustaqbal xumi ay wajahdo Soomaaliya. waxaa bilowday dagaallo qabyaaladaysan ee lagu aafeeyey haweenka iyo carruurta, dadkana looga saaray guryahooda oo laga dhacay. muddo kadib, aqliga oo aan weli gaarsiisnayn garashada dhibaato qaran ku habsatay in ay adag tahay qaab looga soo kabto, ayaa waxaa dib u bilowday neecaw yar ee nabdoon, balse ma aysan sii jirin oo noloshaasi waa la diiday. waxaana qorshaha labaad ee shisheeyaha midnimada Soomaaliya argagax iyo cabsi ka qaba uu noqday in uu sameeyo federaal. in ay sameeyaan wax u eg dowlad, balse talada masiiriga ah ay iyagu gacantooda ku jirto. intii ay dhibaatada Soomaaliya ka socotay, waxaa hambalyo iyo bogaadin iyo farxad wadaagayay dal waliba ee shisheeye oo aan deysnahay.
way adag tahay maalgashiga shisheeye xilligan waxaa dib u curtay dagaalo lagu ba'ay oo ay ku salaysan yihiin diinta. waxa ay ka tarjumayeen ka xumaanshaha shisheeyaha neecawdi yareed ee ina soo gashay. waxa aan go'aan ka gaari weynay shacab ahaan ayaa shakhsiyaad ku barwaaqoobay cabida dhiiga walaalahooda iyo boobka hantida walaalahooda. waana tiro fara ku tiris ah ee shacabka haddii ay midoobaan iska dhicin karay tan iyo burburkii dowladda kacaanka askunkeeda. shacabka Soomaaliya waa kuwa ugu nugul dhibaatada xilliyada dagaalka iyo aafada. miyaynan ahayn damiir qabayaal oo go'aanka noloshooda iyo mustaqbalkooda u hogaamiya wadanka awoodiisa iyo nolol cusub oo aan u abuurno jiilka xiga si aysan ula kulmin dhagahadalka shisheeyaha ee ereyada badana ka soo yeera ee ah qarankii fashilmay iyo afartii dowladeed ee dal qura lahaa. Soomaali waa mid dhaqankeedu waa mudan asalka midabkiyo madhabtay ka siman tahay. Soomaali waa mid dhaqankeedu waa mudan asalka midabkiyo madhabtay ka siman tahay. waxaa bilowday jahli siyaasadeed ee abidkii ugu xumaa ee giyiga soo mara. waxaa wadanka soo galay ciidano ajnabi ah ee ka kala socday dalal ay Soomaaliya ka sareyn jirtay. sumcaddii Soomaalida waa halka kaliya ay ku burburtay. ummad yahay midnimo ma ka maarantaa maamul dawladnimo ma ka maarantaa nabad baa macaani ma ka maarantaa. dhammaan dalalkaasi ma jirin mid daacad u ahaa u adeegidda danta guud balse waa goob lagu ciyaarayo kubad isreebreeb waana dhiigii shacabka Soomaaliyeed iyo mustaqbal magac xun u reeba. way burburiyeen wax waliba kadib waxaa la helay nabad laakiin siyaasad kala tagtagsan. waa siyaasadda jahliga ee ka soo curatay giyiga Soomaaliya. qorshayaal iyo shirar lagu go'aamiyay masiirka dalka iyo dadka Soomaaliya sidii ay u sii kala fogaan lahaayeen ayaa dalal aynu darisnahay lagu qabtay. waxay sii socotaba ma jirin saansaan nabadeed mana jirin isku halayn laba qof oo walaalo ah dhexmari karta wadanka gudihiisa. waa qorshihii afraad ee laynugu kala fogeeyay.
qorshaha shanaad waxa uu dhalay federaal taas oo ay ka curutay iibsiga badaha Soomaaliya waxa ay noqotay wadan ay ka aramiyaan 4 madaxweyne waa wadan ay ka aramiso 4 madaxweyne gobol waliba waxa hogaamiya looga dhigay mid waliba ay u dhawaa dawladaha dariska ay cadowga ku ah midnimada Soomaaliya cabsi weyn ka qaba Soomaaliya midnimadeeda way kala fogaatay midnimo lama maqal midnimo lama maqal qaran waxa ay noqotay in shakhsiga Soomaaliya ay safraya xuduud 4 ah loo qaybiyo dalkii dadkiisii diinta qura ahaayeen oo ay ku qabweynaayeen sooyaalka hodanka ah ee taariikhda Soomaaliya waxa ayna soo galay siyaasiyiin aanu aqoon dhameystiran u lahayn siyaasadda federaalka iyo cid ay ku haboon tahay qabiil ayaa adeegay oo ay ka qadeen shacabka Soomaaliyeed Kenya waxa ay ku faantaa in Jubbaland ay tahay qayb ka mid ah ciidda Kenya halka kuwa badanna ay la duuban yihiin oo ay u ololeynayaan kala jajabinta dalalka Soomaaliya ee qaabka aqliyaysan ee siyaasadda lagu boobayo hogaamiyaha waa isha kaliya ee garaadka qaranka laakiin waxaan aragnay doqonka qaranka federaal waxa qaatay siyaasiyiintii u adeegsaday shisheeyaha halka shacabka aysan ogolayn federaal maxaa yeelay astaan qura ayaa ka dhaxaysa ee ah calanka عليه بلوغي حدكتا عطانكي بحبك عبرتي إزيقي حريتي مثلكي كعنبحو إن شاء الله مرضى العرو ربي سوحير العربادو سيرا عربتيو وبحب دينار عرف دونتا afar calamo ayaa ka soo muuqday Soomaaliya iyada oo wali loo malaynayo in ay Soomaaliya xor tahay ayaa munaasabado lagu taageerayay afar calamo lagu qabtay giiga Soomaaliya laakiin aqoonyahanka kama uusan waramin dhibaatada ay dhaxalka u reebi karto iyo banaanka cad ay soo dhigi karto dadka u dhashay qarankan maxaa yeelay tacliinta ayaa ka xoog badnaatay jahliga waxaan aragnay kuwa u dooda jahliga siyaasadda kana fogaada danta siyaasadda guud ee dalka kuwa aan qarin xogaha qaranka iyo awoodda ciidamada maxaa yeelay wadamada cadowga ah ee qorshayaashaasi soo abuuray ayaa weli ku dhaxmilan siyaasadda dalka Soomaaliya qarankani baa ma noqon dhulkayguna ma galo badaydu
talooyinka siyaasadda iyo mustaqbalka dalka ayaa loola tegayaa shisheeye halkii laga rabay aqoon-yahanka Soomaaliga ah iyo in la wareysto dareenka shacabka Soomaaliya ileen waa iyaga cidda ay sugaysa masiirka iyo mustaqbalkooda federaal nama mideeyo waxa aan faalooyin iyo erayo xunxun aan dhibsaday ku arkay bar la soo dhigay muuqaal looga waramayay awoodda qarankii fashilmay waa sida iyagu ay aaminsan yihiin waa qarankanaga Soomaaliya kolkaas baa waxaa ka muuqday qaybta faalooyinka dadka ka soo jeeda dalalkaasi talada iyo shawrka mustaqbalka Soomaaliya loo doontay Soomaaliya waa qaran fashilmay waana kala jajabinaynaa waa ereyada qof ka mid ah dadka ka soo jeeda Kenya waa ereyada mid ka mid ah dadkii faalada ka soo dhiibtay waxa uu ka soo jeedaa wadanka cadowga ah inuu diriskanahay ee Kenya siyaasiyiin Kenyaati ah ayaa wacad ku marayay si ay u helaan badda in ay kala fogeeyaan dadka Soomaaliyeed oo ay ku indhatiraan federaal halka siyaasiyiinta sababta u ahaa federaal ay ka aamuseen Soomaali waa mid وأولي ميرح مطانا ويو ملبيك ورثي damiirka iyo dadnimada haddii aynan shaqayn qofka waa qolof kaliya ee xiran maryaha uma qorin warbixintan inaan qof ku mucaaradayo laakiin waa masiirka iyo go'aanka Soomaaliya mustaqbalka haddii aanan go'aan ka qaadanin innaga oo aan talo isku biirsanin ugu dambeyn ma jiri doonto taako ka banaan doonta dhulkanaga taas oo ay milkin doonaan shisheeyaha imika ee cadowga ah aan soo dhawaysanayno waanu ku dhimanaynaa in Soomaaliya ay hal noqoto waanu ka fogaanaynaa in jeclaysiga iyo kala fogaanta dheer ee Soomaalida dhexdooda taala imika اسمك أبصده بدك تسقبصده كلام مارمي ميساني صومالي بدك تسقبصده اسمك أبصده بدك تسقبصده كلام مارمي ميساني صومالي بدك تسقبصده ma jiro wadan ay mustaqbalkiisa dhisayaan dawladda shisheeye waxa wadan dhisa dadkiisa laakiin haddii ay Soomaalida midowdo oo ay maalgashiga shisheeye dhiirageliso Kenya iyo wadamo kale waxa aan rajaynayaa in ay mamnuuc ka dhigaan soo galitaankeeda Somali run ahaantii waxa ay muuqanaya ififaalo iyo nolol wanaagsan iyo maalgashiga shisheeye ee kheyraadka hodanka ah ee dalkeena laakiin wali ma arkayo dad go'aan qaatay oo ka guuraya federaal una guuraya Soomaali oo mid ah federaal Soomaaliya ma midayso balse waa kala qobqobka ugu weyn taas oo sababi doonta Soomaaliya in ay weyso taako dhulkeeda ka banaan iyo badaheeda waxaan ku soo koobayaa warbixinteeda dawlad shisheeye ma dhisto mustaqbalkaaga ilaa aad adigu dhisto laakiin maalgashiga shisheeye waxa uu dhisayaa mustaqbalkaaga ummad yahay midnimo ma ka maarantaa maamul dawladnimo ma ka maarantaa nabad baa macaani ma ka maarantaa dal isagu dadkiisa ay go'aan qaateen ayuu shisheeyaha jecel yahay oo uu bogaadinaya oo uu maalgashanaya wadan waliba ay dhismaya waxa go'aankiisa qaata dadkiisa anigoo ah Cabduqaadir Maxamed ayaa soo saaray idilana socodsiinayay warbixintan waxaan u diyaariyay si xamaasadaysan oo aan dareenkayaga dhab ahaan ugu tarjumayay waxaan rajaynayaa inaad la wadaagtaan Soomaali oo dhan si aan uga wada damqano oo aan go'aan uga gaarno qaranka mustaqbalkiisa iyo shacabka gabi ahaanba haddaan caalan yahow tusheeyo daruuraha sare ku geyn wixii hore aan dayacay dibaan ka hagaajino dunida adiga u sarreyn dastuurku ilaaliyo cid ku damqanaysa iyo
aqoon-yahan daacadow raagiyo dumaraad lahayd waxaad dihalka iyo dagaalada kugu wacan dugaagga shisheeye ee dalkii gobol gobol u jar waxaan idinku dhaafayaa maalin wanaagsan iyo horumarka Soomaaliya oo horay u socda iyo go'aan shacab qaata ee ka taga federaalka ay noqda midnimo Soomaaliya ee diin qura luqad qura iyo jinsiyad qura leh haddaan daayarteenu kicin oo aan laga diirin eexo Afrika